Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan sharxi doonnaa xigmaddii 13aad oo aad wada sugayseen dhammaan asxaabteyda. Waxaan idinka mahadcelinayaa sida xigmadda leh aad u sugteen xigmaddii 13aad. Aad baad u mahadsantiin asxaabteyda meel walba oo aad caalamka ka joogtaan. Dhegeysi wacan. Ma jiraan wax ka weyn adduunka oo ah in la jeclaado waalid. Waa inaan jeclaano oo aan jacaylku ku dhicin sababtoo ah wax waliba oo dhaca waxaa jira qof jabiya. Mararka qaar meesha uu dulqaadkaagu ku gaarsiin karo xooggaaga kuma gaarsiin karo ogow. Dulqaadka aan badino insha Allah. Dadka maankoodu xiran yahay ayaa mar waliba afka fura. Haddii qofna uusan ku jecleen, marka waxaad samaynaysaa wax qaldan oo aad moodo inuu saxan yahay. Waxaan ku hadlaa maskaxdayda, weligay ma daneeyo waxaan ku hadlo. Waqtiga xaadirka ah ka tag si fiican cidna ma oga biri. Shalay waa taariikh, biri waa qarsoodi, maanta waa hadiyad. Taasi waa sababta loogu yeero xaadirka. Ma jiro qof fahamkiisu kaamil yahay. Ha ka fikirin biri ee ka fikir hadda. Had iyo jeer isku day. Ha dareemin inaad guuldareysato adigoon isku dayin. Mar kasta oo aan helno furaha guusha, qof ayaa bedela qufulka. Marnaba ha quusana bilowga mar waliba waa kan uga adag ugu midaas. Sida keliya ee lagu qaban karo shaqo weyn waa in la jeclaado waxaad qabato. Adiga. Noloshu way gaaban tahay. Dhoola caddeey inta aad weli ilko aad leedahay. Waxa ugu horeeya uguna muhiimsan nolosha waa inaad naftaada xakamayso. Hadafyadu waa macnaha nolosha ogow. Markaad u malaynayso inaadan haysan fursad aad ku hesho waxaad rabto, malaha ma heli doontid, laakiin haddii aad naftaada rumaysato, xaqiiq waxay tahay goor dhow ama goor dambaba waad heli doontaa waxaad rabto ama waxaad rajaynayso adiga nafsad ahaantaada. Cidna ha ka hinaasin, macnahayga cidna ha ka maseerin. Qof waliba wuxuu leeyahay door ama mashaqo kale ayaa haysata. Samey hal shay oo ku saabsan naftaada oo ka dhig mid aad u wanaagsan. Hubi inaad taqaanid doorka aad ku leedahay nolosha qof kale. Ha isku dayin inaad kor u qaaddo dalacsiintiisa marka laga yaabo inay qaarka u saaran yihiin inay naftirkooda baxaan ama adiga ku cariiriyaan. Baaxadda dhibkaygu ma aha wax la barbar dhigi karo kartidaada aad ku xalin karto adigoo aad u qiimeeya dhibaatooyinkaaga. Waxaad hoos u dhigtaa naftaada. Marnaba naftaada hoos ha u dhigin, mar waliba naftaada kor u dhig. Ku hareerso dad aan adiga kaa soo horjeedin. Marka hore naftaada u ballanqaad inaad tahay qof wax walba gaari kara. Dadku waxay sameeyaan ballanqaadyo aad u fara badan oo aysan ku tala jirin inay fuliyaan ama inay sameeyaan. Ballanqaadyadaada naftaada ilaali ilaa aad dhab ahaantii diyaar u tahay inaad kaydiso. Inta badan ee aad naftaada u ixtiraamto ayaa farxad kuu noqon doonta, iyo inta badan ee aad ogaan doonto inaad mar waliba u qalanto wax ugu fiican ee dunida yaala. Marka hore isjeclow, markaas ayaa adigana lagu jeclaanaya ogow. Mar haddii aad qalbiga ka dilan tahay ogow, wax kuu qabsamayo ma lahan. Marka hore qalbigaada ka buuxi wanaagga, qadarinta, alla ka cabsiga iyo dadka kaa weyn inaad ixtiraamto. Weligaa cidna ha xumeen. Weligaa cidna ha u caroon. Cidna ha xumeen. Cidna xumaan uusan kaa filinin ha ugu nixin. Ogow wanaagga wax ka wanaagsan inuusan jirin. Mar waliba naftaada ugula dardaaran
inaad wax wanaagsan aad samayso. marnaba ha ogolaanin in qaladkaagu dhaawaco qalbigaaga. hana sugin in ay guushu ku timaado ee dadaalkaaga laba jibaar adigoo qaladkaaga hore cashir ka haysto ama adigoo qaladkaaga hore cashir ka dhiganayo. jooji fikirka khiyaaliga ah adigoo xadidayo oo bilow ka fikiridda suurtagelinta guushaada. dhammaan noloshu waa tijaabo. in badan oo tijaabooyin samaysaa baad guulahaaga kuga xaqiijin doontaa. dhegayste, inaad noqoto qof heer sare ah waa shaqo aad u adag. waa inaad badbaadisaa adduunka, laakiin aadista dugsiga ayaa kaa sii adag. waa inaad naftaada badbaadisaa. dumarka waxaa loola jeedaa in la jeclaado, ma aha in la fahmo. dadka maankoodu xiran yahay ogow mar weliba iyaga ayaa qalbigooga ama afkooda fura. riyada kuma dhammaato ogow hurdada. nolosheedu waa sida boog furan, laakiin cidna ma oga wixii ku jira. waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu weyn ee aad naftaada siin karto inaad cafiso qof weliba uu qalad kaa galay. cafisku waa wax lagu qoslo. waxay diiradda saartaa qalbiga, waxayna qaboojisaa qaniinyada adiga ku soo gaartay ogow. marka dhaawac qoto dheerna wala sameeyo, weligeen ma soo kabano ilaa aan cafina maahine. dadku mar weliba talo uma baahnaa. mararka qaarkood waxa keliya ay u baahan yihiin waa gacan ay wax ku qabtaan, dheg ay wax ku dhegaystaan, iyo qalbi ay wax ku fahmaan. dhammaan ummadda muslimiinta meel wada caalamka joogtaan waxaan isku dardaarmaynaa dhammaan allah naga dhigo kuwii qalbiga wax ku fahmo. daawade dhegaysti, aad baad u mahadsan tahay la socodka wanaagsan. nolol wanaagsan ama nolol xun nalama siin ogow. nolol baa nala siiyey, annaga ayay nagu xiran tahay inaan ka dhigno wanaag ama xumaan. waxaan inta badan ka shakinaa markaan saxan nahay, laakiin mar weliba waan kalsooni qabnaa markaan qalad samayno. midda koowaad iyo tan ugu muhiimsan nolosha ayaa ah inaad naftaada xakamayso mar weliba. wakhtiga isbeddelka mudnaanta ayaa isbeddelaysa. ogow wax aad ku fikirin ayaa mar weliba dhacayo. cidna ma joojin karto wixii dhacay. hareeraha waa been, tani waa runta nolosha. qadarku waa arrin ikhtiyaar ah, ma aha fursad lama filaayo, laakiin waa la abuuray. ogow noloshu waxay ka kooban tahay maalmo aadan xasuusan karin kuwii hore ama waxaad soo martay adiga. baro sida aad weligaa u noolaan doonto. u noolow sidii aad beri u dhiman doonto. dhegayste, hawalwelin, dhammaanteen waa qaldannaa ee iska ilow wixii tegey oo noloshaada ku sii soco. nolosha waa in lagu cabbiraa camal ee ma aha sannado. akhrisku wuxuu kaa dhigaa nin buuxa. shirku waa nin diyaarsan iyo qorista nin sax ah. haddii qofku aynu rumaysan mucjisooyinka, ma laha waayo aragnimo nololeed. been ayaa laga yaabaa inay daryeesho wakhtiga xaadirka ah, laakiin ma laha mustaqbal. diiradda saar keliya wixii muhiim ah oo aad is leedahay way ku qabsami doontaa. go'aamadeennu waa kuwo anshax leh oo keliya marka aan qaadno mas'uuliyadda nolosheenna. iimaanku waa fahamka nolosha iyo aqbalaadda mas'uulnimada. nolosha micnaheedu waa in si joogto ah loo halgamo oo si joogto ah loo guulaysto. waxaan ogaaday
in haddii aad nolosha jeceshahay noloshu dib inay kuu sii jeclaan doonto adiga. dadka qaarkood isboortigu wuxuu noqdaa habka keliya ee loo fikiro. weligaa ha ku mashquulin wax aadan xakamayn karin. sida aad u korto oo aad u ogaato jihada koritaankaaga, kani waa isha xoogga iyo kalsoonida nolosha. wakhtigu waa maradaalo noloshu lagu sasabo. waxaa jira hal guul oo keliya noloshaada ugu noolow sidaad adiga doonayso. noloshu waa gaabantahay, laakiin ammaantu uu qofku ammaanay waxay noqon kartaa mid weligeed jirta. fikraddu ma ahan lacag la'aan haddii aadan ku kasban karin noloshaada. waxaan leenahay hal nolol oo keliya si aan u noolaanno. sidaa darteed waa inaan ugu noolaanno sida ugu fiican ee annaga awooddeennu tahay. nolosha dhib ma laha in la xalliyo, balse waa xaqiiqo la soo maray. dib u fiiri marka aad bixaysid xoogaa. ka fikir haddii ay habboon tahay inaad baxdo. noloshu ma laha waxyaabo aad u fara badan. ogow intaad nooshahay wax walba inay kugu dhacayaan. ogow intaad nooshahay wax walba inay ku soo gaarayaan. mar weliba waxaa loo baahan yahay wax walba ku soo gaaraya inaad adiga sabarkeeda lahaato. ogow mar weliba waxaa dhacayo wax aad adiga filaynin. mar weliba nafsadaada xakameey. qalbigaaga deji. qalbigaaga wanaagsanaan sii. qalbigaaga walaaca ka daa. ogow qalbigaaga adiga ayaa walaac ku abuuri karo, isla adiga ayaa dejin karo. ogow mar weliba naftaada deji oo naftaada soo xasuusi allah subxaanahu wa tacaala ku abuuray koonkan ku keenay. wax weliba asiga ayaa garab kugu sii doono. ogow ilaahay cid uu moogyahay ma lahan. qof weliba ilaahay ma mooga. asxaabteeda aad baad umaadsan tihiin. sida quruxda badan haddii dhegaysateena aad baan idinka mahadcelinayaa. anigoo ah youtuber Mohammed Qoste, waxaan idin leeyahay jimco mubaarak. jimco wanaagsan meel walba aad caalamka ka joogtaan. la soco xigmaddii 14aad insha allah.